fanaaniintu way noo heesaan wayna madadaaliyaan laakiin bishii ramadaan aad ayay noogu qoslaysiiyeen hadda waxay joogaan xalfadda barnaamijka qaraaxo oo loogu talagalay maalinta ciidda aniguna waxaan u socdaa hadda goobta ay ka dhacaysa xafladda waxaana wataa 3 hees baaruud isdajim waxaa isku malaysaa inaa fanaantaa waqtigii barnaamijka qaraax uu dhamaaday waaya saaxiib si wada jira fanaaniinta mikrofonkooda aan ku wareejino ina keen saaxiib okay habeen wanaagsan dhammaan asxaabta halkan ku sugan iyo daawadayaashaba ciid wanaagsan ayaan idin leenahay waxaan halkan u joognaa ama baan isugu imaanay xaflad aad looga soo shaqeeyay in badanna waqti lagu bixiyay xafladaasi oo aan u qabanay amaba aan ugu talagalnay daawadayaal fanaaniintii qiimaha lahaa ee barnaamijkii lagu magacaabayay qaraaxo qayb weyn ka soo qaatay waxayna madadaaliyeen dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed oo adduunka oo dhan ku nool barnaamijkaasi wuxuu ahaa haddii aan idin xusuusiyo mid baxaya bishii Ramadaan wuxuuna ahaa mid ay wada sugayeen shacab aad u fara badan waxay noqotay xalqa walba fanaanka habeenkaasi ku xusan in asxaabta daawanaysa ay magacyo kala duwan ay u bixiyaan waad mahadsantihiin mar kale soo dhawaada barnaamijka qaraaxo wuxuu soo maray marxalado kala duwan xalqooyinkiisii aadka u faraha badnaana waxay ahaayeen kuwa aad u xiiso leh habeenba habeenka ka dambaysa waxaan rabaa inaan dib u mulicsano amaba aan isxasuusino xalqooyinkii aan soo wada daawanay marka nala daawada فنان هذا فنان marka ado intaan leeg ma fog soo gashay maya maxaa ku dhacan ayadaa ku qoslaado intaan leeg waa fog soo gashay macnaha ma inay igu qosashid ma wala fiican ma inay igu qosashid ayadaa ku qoslaado ana هلا عياره وينه bas ka baxay la fasaxay انا دم بحاي ميدا اديك هالشنا ما بس انا اديك مو ايمان dugsimiya waa iska baxa dheer iska bax dugsimiya hadda aniga hadloo saaray kula hadasha deerto macnaha naftii waa imaad ma iska bax ma dhaho الورا marka waalidka ordaysa reality ah wallahi labadiina adaa waalan wallahi يا ذا والله والله labadiina adaa waalan wallahi because qof kana la hadla kana la hadla ay sheegaysid ba labadiina adoo ku hayaaba qof walna dhan soo gashay wala la ma qaan please wallahi aan qof iska socdo ma aragti waali oo birmo wada wala saan wala qaad ma aqaanaba ma guursato horta ma yoolo ma isguursanaba أبو ورثك بقول حقليا. حيت ماشي عن كل ضمبينت تستور كعن لهين أو أي أمدي جدا حتى صغنين بع. يا شايك. أبو صفر. ما والله أمدي جدا صغنين والله. ما هو سوي أمدي كان هذا. الصح أصفر يستوي. فنان بطاي. عجبك يا أسا. تكين استعمل تكين. كما كان أبو كودي هرت ياك بلني هرت. أيوة سمع سمع. هذا يعني برنامج يسوع ذي وبدحله يسوع كش حاجات. في برنامج يسوع ذي يربح بنانك يرتي. متى سأوض بلابنا؟ مع السجا. أنا برنامج إنه أنا برنامج كذا لما قال عليه. ميا. أنا في الدنيا وطا. أوكي. في الدنيا وطا برنامج كذا. أول وين وطا وين بري أنا في صعب وأنا.
awood uu ninkan wata mid yar ma ku degdeginin aba awooddeedii waxaan ilaa hadda aad wax makaashiyo adile mar bal soo qabsan ma ka sheegin walaalo raali ah ma adbara la ahaa fadhiisaan waqtigan ku imaaday asaa tagay xagga u taga asaa tagay maanta waxaa kutira daldalo daawadan lahayn kutira daldalo taa waxaa daliilu ah hadka samada duuliyo diinkuba siman calaa ka jilmiya haysta waxaa dhahay nololays magarab dego dad ma wada sinaan karo adduun waa isdabamaal heesta ka jilmiya barada maxaa ka jinka maxaa ka jimina ma heesta ka jilmiya maxaa ku qajinaa maxaa meesha yaallo ka jilmiya maxaa ku qajinaa oo meesha yaallo maxaa meesha yaala anaka meesha ma aha maaho uu heesay annagoo waraysanayna heesta u wataad soo gashay aad soo gashay xoogaa qadarina loo baahan yahay yaa laga raba qadarinta ya adaa lagaa rabaa dadka ku dul yihiin qofkii imaado aa la rabaa in la qadariyo dad qadariyo inuu asaga la qadariyo meesha dagaal ayaa leh dagaal maa qof weyn aad tahay waa qofa ku ag fadhiyo waa heesa iska qaadaya aan heesna meesha soo fadhiisan shaqadeena hees waa maanta hadaa heesi kartid dhinacay ka hees heesteedii waxba kaama gelin no anaga howlan wadanaa noo fadhi daawadaa tahay noo fadhi abshiro bas naga aamus adin baa usoo gatid marka adin ma usoo labis lahayn oo hadda waxaa leedahay isteerkeeda qabtay gabadha adeeray inaa meeshaan maaragtay midba mar isku soo balaa isku soo dhigno igu wacd meeshaan maya waa iska wadanaynaa barnaamijkan maxaa u wadanaynaa barnaamij saddexeed maa ku jira barnaamijka kuma jira aniga may waxa waay isagana wareysiyaa ka qaadayay haddaa ka qaadayso barnaamijka sugta maxaa uu diiday mujeedada uu fadhiistay moryaana tiin markee walaa moryaana tiin saa doontiin aa yeelaysay may anaga wareysigeena wadanayna ani adiga khalaas adiga noo fadhi aniga wareysigeena wadan ay iska fadhi marka ay ma bilaabanayna heestii aad wallahi aniga amba martidan kamid ahay amba martidan kamid ahay qof dumar waay ida haddii dumar tahay dumar waay aniga raga ah ma ani saacadan laga bilaabo dumar ma iibaan hadday ka soo horeeyay lahayd iyada meeshaas saacadan laga bilaabo dumar ma iibaan nin ma noqonay adigana dumar ma iibaan marka idab daradan arko nimanka ku biira kasiraayenaga kasiraayen maxaa dhacay maxaa ma horeyso fagiimada ku qabsato cidi kama horeyso ii sheeg markuu sahan go'doomo ay dhegeyso yara qabo boys qabo markuu sahan go'doomo geeda goynaya gaajiyo haraa markay gabax noqdaan haye bal waxa ku xigay ii sheeg qaar meel u sii galay markay gooracaan ya hasas waa waa kuuri ma gooracaan de waa kuuri waan fahansanay gartaa waa laga horeeyaa inay sameeyaan maya intaa imika aad sheegtay waan ku yiri aadaan fahansanay soo fariisana ay weysi may wala bufriso la may ana hala bas dagal ma rafis saxo abu dagal barnaamijkan nimanka raalli ka maaha maanta bibaalay su'aalooyin baabadaa baa qabana iga ka jaran tahay inta markuu saa u jeedo wuxuu leeyahay iska baxno waa bixi rabaa saas ma ku dhahay markuu intaagnaa ma saas ku leeyahay bax waa bixi rabaa bax ma ku dhahay ma kula hadlay macnaha masuud gacanta kaaga way baaqay walaa waxaa intaas ka deesinay maxaa sameynaa baan waqti hadda imaan waqti saacada hum imaan walaal koodi waxaa imaaday labadii iyo barkii ay imaaday ma aadan imaan labadii barkii walaal labadii barkii ay imaaday ma imaan labadii barkii ay imaaday banaanka fujooy hadda ju telefoon banaan waxa soo cusbano soo wacday maxaa wadoon intay fadhisay walaalo qashqashaadka inta naga deysay qarashaa nagu soo baxay naga daa waxa abshiro ma joog abshiro ma joog wixii go-aan ah deegaanka sideeda
ما يقول أنا ما هم باني أنا برنامج مش ممكن يسنو طبعا كل حنو سوسو استك أنا هذه مسكسينة وحال سؤال كذا وغلط بصراحة أنا هذه مسكسينة أخاف أنا محفل على أنا هاي تمام معانا ولا حمر فلا أخاف على واحد يقول لنا ذاك أنا سؤال محفل أنا ولا يبلم واي ما قال حتى اسمه أنا قف أو وقت كلا دوران كرما دوران كذا صح ما agaasimaha loo wacan وأنا نكاس بحكم مغلمان كيف ولا adi maxaa agaasimaha loo wacay ku gelinaya ana adig kulama hadlin dadka la rabo in ma aragtay dhahan agaasimaha loo wacay maxas dadka ana adig kulama hadlin soo may ana waa agaasimaha loo wacay taagantaa ma amba ma dhahoy ma waa waca ma dhahoy ma may adig kulama hadlin ma adig ku dhahay agaasimaha loo wacay afka goosan nin ragaa tahay idabtaada ku ekaa adna afka goosan naaga tahay naagnimada kolka meeshaad iska fadhi waa khaldantee ana waxaan qaldanahay male saan ku qaldanahay ما شاء الله هذا وما تنتهي وكله لا لا أباني على مش خاد موجود نكور أبو حتى هاي ويلك قالت بالله يقول قيلنا هذا محكا قلدن اللي هو قال لا هو استاني على مش خاد مش الشقة كسعت أبار شقة هذا كسعت دي أنا شقة ذا وطن الشقة هذا وضعتها ازدجي بليز على مش هذيك الوكي استاجا عن البرنامج كان قد استاجس أدوك عن في عن أنا سيء أنفعه وكي استاجا هاي والله استاج ما هني عكس دعوة فينا مسار بس ولا قام حكى قلادي أنت حمرا وكسور ما ذا أبو وأحمد حبيه كجرنا بحي ولا لا والله وهلي وقت كذا هلي وقت كذا هلي عمل مقالة جو إرشاد الله إرشاد مايا هاي وركوم حوي ده متقان هذا كوم نوعا من نوع وعتين كوي نيكو يقف إله هدان داي ما أنت برنامج كايدا ما أنا هتسام متقان وأنا عاد ما خلني قبلها راس بكرة تسوي لي حشيش وحرام وهجاك طبعا وحو أهم وقال بقص بدن وحي أهايت حلقوينكي أما برنامجكي قراحو فنانينتي كسوق قادتي يولي بفعلينتي أي كعليين markii cameramanka ama ninka kale ee kursiga soo qaadan jiray ee baaruud lagu magacaabo markii uu barnaamijka ka qaso fanaaniinta qaab kala duwan ayay uga falceliyeen qaar ayaa xanaaqay xataa waxa ku jirta gabadhii kabta siibatay waxa u bixiyeen magacaasi dabcan dadka shacabka ah waa yahay qaybo badan ayuu leeyahay barnaamijkan caawa waxa halkan ku sugan daawadayaal fanaaniintii oo aan halka maqneen oo rabno caawa inaan abaal marino waa tahay waxaa rabaa markan lafdhabarta barnaamijka waxaa dhihi karaa waa munamiski waayo waa gabadha wariyaha ahayd ee barnaamijka waday markii fanaanka iyo qofka kale ay isku dhacaan cusbo yar ayay barnaamijka ku dareysay waxay iska dhigaysay qof aan waxba ogeyn muna ayaa rabaa markan inaa u yeero ee hal iyo laba ka dhahdo barnaamijka iyo qaabka ay usoo waday muna soo dhawow waxaa ku daawanaya dad fara badani waxaad soo madadaalisay amaba aad juhdi kusoo bixisay barnaamijka qaraaxo waxay ahayd gabadhii wariyaha ahayd markaa xalqooyinkiisii kee kugu qosolka badnaa amaba kugu adkaa aad isdihaysa waa fashilmi doontaa alla lehe aad iyo aad baad mahadsantahay hani iyo dhammaan sharafta kasoo qayb gashay barnaamij xafladda barnaamijka qaraaxo sidoo kale daawanayo iyo fanaaniinta هني والله برنامج كل جيس وحوها دباتو إيوها صوتها ضدك عن كسبيني برنامج كحير أصحاب تيدي لكن سحل قد يقدر نيد علوش يقهر سحيد فرتون قبل الصبر كصباها وحنا حناقي مركي أو أبشر أو رهي إلا وحسيبه عنك إذا آذو أقول لك أنا عنك ويسيبت ديك عندك كنت القدر سيقول دباتو بدنيد حاونا ويقول قصر بدنيد ويعب سنيس بارودي كعب سنيس حاو ان نينك لكن عن كعب سناي ان سدها وحو ديلي دونا بس كمرضو جبين دونا وحوها محمد جامع لكن سو حمو سبيل لفيس وعد فدا ما شوف لك عاي منو waxa ii sheegtaa qofkii ugu macangagsana ama ugu adkaayuu ahaa oo meesha laga kicin waayo nadiifo way ka kiciyay kursi waa kari weyn markii dambe anaga yaabnay waxa waay iska deynay sidoo kale muxtar social maalintii uu iimanayay barnaamijka ku duubanay oo soona isagoo sooman oo yimid abshir
iyo baaruud waa ku qeylinaya waxaan dhahay ka tartiibiyo wiilka uu soomeeyey tartiib ya markaa isla markiina waxaa ku xigay maxamed jaamac muno aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo dhammaanba fanaaniintii kaala qayb qaadatay iyo kaamirmaanadaba iyo asxaabta barnaamijka kula wadabay waxay mudan yihiin in la yidhaahdo waa mahadsantihiin waayo waxaa madadaaliseen dad aad u fara badan idinka dhammaan aniga laftirkayga waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan barnaamijkayga qaraaxo aad ugu xidhnaydeen runtii waxaa farxadii ah markaan jidka marayo aan arko ciyaal yaryar oo noqnoqono igu soo ordaya dhahay barnaamijkii qaraaxo waaye runtii aad baan u faraxsanahay dhammaanna waxay aad baad mahadsantihiin fanaaniintii iyo kameramaankii iyo sidoo kale baaruud iyo dadkii ka wada shaqeeyey barnaamijka qaraaxo adigana sidoo kale waa mahadsantihiin qaabka wacan ee aad shacabka soomaaliyeed u madadaaliseen waa tahay sida hore idinkugu sheegaba waxaa halkan nagula sugan fanaaniintii oo aan rabo mid inaan halkan u keeno habeenkaas waxay ahayd ama barnaamijkaas wuxuu ahaa qaraaxo caawana waa qaraaxada fanaaniinta oo halkan ayaa lagu qaraaxay doonaa fanaanka aan doonayo inaan halkan keeno waa fanaan aad iyo aad u dulqaad badnaa geesina ahaa sida ka muuqata wixii agtiisa fadhiyana wax ahamiyada uu siinayo ma jirin oo waxaa u caddeedo keliya barnaamijka sida uga qayb qaadan lahaa waa fanaanka weyn ee lagu magacaabo mukhtaar social waxaan jeclahay inuu halkan soo gaaro dabcan mukhtaar sidoo kale asaga xitaa wuu is arkay waxaan filayaa inaadan hadda xasuusanin waxyaabihii a waqtigaas aad dhehayso waayo shucuurtaada aad ayay u kacsanay wallaahi ma xasuusan karo inaan dib u fiirsado iyo inaan sidaan u arko mooye maalintii waxay ii noqotay wax la yaab leh marka nin kursi wato agteyda uu soo fadhiistay ee ninkii kaamiramaanka ahaa wax iga duubayay oo uu leeyahay anna waxaan u arkaa inuu isaxaayo faraantiga siib amarkaagaa jiraan er faraantiga fog waa tuuray wuxuu yidhi 80 jir saati 20 jir soo 18 jir soo qaatay waxaan dhahay miraayad markaan isku fiirinay waxay ekaysiisaan eray 18 jir marka miraayadaas ay khaladay taada mid tusi kartaa is arkay hadda kaamirwaanka Soomaha kaamirwaanka abshirsaad ayaan jeclaa inuu halkan soo gaaro inta aan baaruud ku imaanin ka hor ayaa waxaaba nafta ka qaaday abshir nafta iga qaaday laakiin abshirtiisa waxba kama dhigayn wax uma arkin abshir waa gartay waa taan la muno ida ana raali kaga wax alaal wuxuu yiraahdeen abshir waxaan dhahay adigana fasaxa u tahay waxa kalada igu aragtay iga qabo ana waqti xaadirkaas waxaan u haystaa kaamirmaankaygi oo isaxay istilkayga صح ila ma baahan waa nin wax kala damacsan aad iyo aad waa tahay abshir soo dhawow ninkan ayaa isqabateen dabcan waxyaabihii markaas aad u adeegsanaysay maxaa kamid ahaa oo ku kululeysanayay hanuus aad u maasan tahay dhamaan martida sidoo kale aad u maasan yihiin ka soo qaybgal barnaamijka fanaaniintii aan soo jabhadeenay oo ay soo tunana waxa leeyahay caawa habeenkii raali gelinta horta mukhtaar horta ninka naga yaabi waaye caawa horta aan ku sheego fanaaniinta qaar sakiin jeebaha ku wato ka iska ilaali mukhtaar horta ani asiga waxaan dhex maray waxyaabo badan mukhtaar waa isqabsanay mukhtaar horta wuxuu yidhaha leedaay iska dhaaf nin macnaha aad horta mukhtaar ma nooga raayay waxaa igu yaab badnaan markii mukhtaar aan dhaa faraantiga bixi oo faraantiga jaceylkiisa ay u soo gelisay aan ka siibay kaasa aad igu yaab badneed dadka inta badan dadku waxay dhahaan lamaanaha qaarkood waa isku dirtaa sababtoo nin dhan oo jaceylkiisa hadiyad gacanta u gelisaa ka bixisay marka mukhtaar sidoo kale waxaa igu yaab badnay markii oo noo heesay horta oo ani heestaan u bilaabay waa noo heesay baaruudkii aan rabnay inuu ka xanaajiyo baaruud asigaa cabsadaba baaruudkii waxaan isdhahayay ninkaan maanta mukhtaar horta hore meela la saaraa baaruudkiyaa cabsaday oo waa loo heesay mar haddii la dhahay anaga meesha shaqa u maan inaan ku heesno hees baaruud uu heesi waaye heesihii oo fag ah oo watay uu qaadi waaye waa tahay abshiro waa mahadsan tahay dabcan baaruud iyo kursigiisa ma u yeereyno baaruud keligiis ayaa rabaa inuu halkan soo gaaro caawa marka mukhtaar waaye dahabadan lahay heestiyaa rabaa inaan kusoo dhaweysto mar ulays ma garab dego dad ma wadaasina adduun waa isdabamaal heestaada ka jin miya maxaan ku kajannaa oo meesha yaalo nin weynaad tahay waa iska heesoo saaya heesta ka jin miya ii sheeg maxaan ku kajannaa maya waa imaaday inay qadirsideed mo
qadarin waxaa laga rabaa ninka yimid yaa la qadarinaa ninka yimid dadka joogay oo meesha looga yimid la qadarin qofkii imaadaa la qadariyaa maya horta dhammaan marti sharafta meeshaan imaaday iyo fanaaniinta kulli waa salaaman tihiin caawo waa habeen ma aragtay annaga raaligelin aan wadno wixii fakada way fakadeenba laakiin caawo raaligelin aan wadnaa mukhtaarna maxaa waaye habeenkii waa igu dhegay heesoo i dhahay hees haddaa waxa isku haysid hees ani 3 xabba leen wata heesayga dhan 3 ma ka badneen marka waxaan is dhahay heesaaga daa hadda qaadid kuwa kale maxaa qaadi doontaa marka waa mukhtaar waa aniga nin iga yaabiyo noqday waa maasha allah baaruudow laakiin adi hees ma aadan aqooninayo dhibka waxaa keenay heese feegaa wadatay hadda ani kor heestan waxaa jira amay kugu daadataa ani heesayga ma badneenba 4 daqiiqo 12 daqiiqo le ahayn 3 heesayna ahayn fahant marka heese badan ma wadaninba marka waxaa ugu daran baaruudan waxaa yaray baaruudaada heesaynin daabadana noqo meesha fadhi na fiirsa anaga heesaynin markii waa heesti rabe laakiin diban u cishte waad mahadsantihiin mukhtaar iyo sidoo kale baaruud ii fariista abshir sidoo kale adiga tahay fanaaniin dhowr ayaa halkan ku sugan dabcan waxaan rabaa markana fanaan kale inaan u yeero waxaan jeclahay inay halkan soo gaarto xaawo degan sida ay sheegtay muno waxay tiri qofkii iigu qosolka badnaa xaawo degan ayay ahayd xaawo soo dhawow waa tahay xaawo dabcan qaraaxadii hore maahan caawo waa qaraaxada fanaaniinta waa raaligelin dabcan soo dhawow waxyar ama wax lay ku dhex jira raaligelin weeyaan caawa dabcan halkan ayaa lagu caweyn doonaa maxaa leedahay horta daawadayaasha iyo taageerayaashaada horta aaday u mahadsan yihiin inta meesha fadhisana nin walba wuxuu meesha ku fadhiyo iyo mansabkiisaan ku salaamay midda xigta codsi aan wataa waa ku baryaa igu soo kicinin kaas kaaga haystaa wal gacmihayga arag horta maxaa dhacay wallahi ka cabsanooya ilaahay ujeed wiilkaas baraanka oo keliya uu kugu sameynaya wax qiiqo maahan waa tahay waa kaa dhaafeynaa codsigaagana waa taxgelinaya waxyaabihii aad ku xasuusatay barnaamijka maxaa kamid ahay xaawo xilligaasi barnaamijka waxaan ku xasuustaa waxaan idhi horta markuu soo fariistay way ku qeylisay muno markay qeylisay waa cabsada waxaa tala ninkan aysan ugu qeylinooso abshir waa la fayaryahay caabna anakoo nagu kacsanayn ka halahan la eg yaa idinka celinay way xiran tahay muraayadii sax waa u baaqaa way ifahmi weysay qeyladii ay sii wadaa waa gartay ana gadaalaan u aruurahe sheekada in laisla ogyahay dhan markaa waxaas dhan ma ilaa iiga soo gala ma dareensaneen markay dhowr qofood ii soo galeenaan ogaada marka bacdi waa tahay markii laguu sheegay inay sheekadan baraanki tahay oo laisla wada ogyahay shucuurtaas sidee noqotay xilligaas wallahi bilaa gacmihayga hadda say ahaayeen lay ahaayeen qabo ujareeray ujeedin waa tahay xaawo waad mahadsan tahay adigana waxaan kaaga mahad celinaynaa fanaaniintii ka qayb qaata ayaa kamid ahayd barnaamijkaasi dad badan ayaa madadaalisay mar waa qosleysay marna waa xanaaqday dabcan qofka bini aadankana sidaas waa meesha laga rabo waana maxaa islahay haddaa saan usii qosashid ninka bis wax xoogaa xataa wax yar tus been eh qosolka serious may ka ahayd mise booje ka ahayd booje iga ahayd waa tahay xaawo aad ayaad mahadsan tahay waa hagaag weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii aan ugu talagalnay abaalmarinta fanaaniinta kasoo qayb qaadatay barnaamijkii qaraaxo caawana waa qaraaxada fanaaniinta fanaaniinta halkan ku sugan waxaa kamid ah nin kale oo aada u dulqaad badnaa ooba afkiisa hadal laga soo saari waayey waa kee dabcan ninkaasi waa Rosa Cadde waxaan jeclahay inay ila soo dhaweystaan waa tahay Rosa soo dhawow Frankie ma ahan waa serious markan abshir wuxuu ka bixiyay jijintii iyo Frankie iyo waxyaabihii aawadatay markaas dareenkaaga sidoo ahaa كاميرمان كهرت قرحن فنانين سايقنا marka maadaama oo ay dhahay iska bixi baashaan waxa u malay markii inay flash soo celinayso ee filinka qaab dara ka dhigayso marka waa ku qaatay waa tahay abshir soo dhawow hal mar waxaan rabaa hal iyo labo
inaad na xasuusiso barnaamijkaas iyo sidii aad roose uga xanaajisay socdoog salaam horta habeen wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ani sidoo kale ciid wanaagsan waa tahay abshir ninkan hore iskuma garanayn sidaa filayo barnaamijka oo keliya ayuu kugu arkay fikradda ah inaad dadka faraantiga iyo jijimanka iyo waxyaabaha ay wataan aad ka bixiso sidee kugu soo dhacda hortaas horta aad u mahadsan tahay hanuuza roos cad horta habeenkii socod waxaan leeyahay aan noqo madax wax ka sareeya oo la salaaxo ma jiraan roos cadde garabaatiga oo wataa kasii bartkooda si aan u carageliyo oo u xanaaqo oo ila yaabo wuxuu isleeyahay ninkan adoo ku qurxinooyaa oo dulqaado waxbaha ku sameynin oo iska sii socda annagoo u qosla kursi jiito teemkiisa ku imaanaya gadaal ka socdo macalin xasan waa igu qaylinaa wuxuu leeyahay maa shaqaysatid si uu ninkaan u ogaanin inaa aniga macnaha asiga ha roos cad waxaan dhahay gacanta bixi uu is adkeeyey wuxuu dhahay gacantaa wax ma keenayo waxaan ka dhaadhiciyey in ay gacanta reflection bixinayso oo indhihiisa ku dhacayso hadhow muuqaalka oo halaabayo muuqaalka wuxuu yidhi surwaalka bix marka ani markuu surwaalka bixita lahay waa isku naxay maxaa ninkii odagahay oo faransiga baalkaa ka bixisay teeda kale ani wax gacmaha ku jira maba leetusi karin way dhibaayeen waxaa is dhahday meesha keliya ada waxaan aji karto waa meesha keliya waxaan aji karto waa meeshaas ku kici si uu u xanaaqo isfiilta u kaco inta badan ma u dulqaadan karaan maanta haddii la way dhibaysaa laakiin ninkan dulqaad uu sameeyey roosa dulqaadkaas aad samaysay ma waxay ka ahayd barnaamijkan martiyaa ku tahay isdeji mise dabeecadun bay kaa tahay dadka waxay dhahayeen komitiyada wiilkan aad ayuu u dulqaad badan yahay horta wax walba in lagu degdego ma fiicno in laga fiirsadaa fiican marka ilaa iyo xad inaad sii salbaaraarabe ma ahanayo xanaaq ma iga roos caddo hadda kursi weynaa imaanayo oo teemkiisa ku imaanayo waad isqabsan doontiin maxaa leedahay kursi weyni ani waxbana dhexayaal soomaan asi ima soo wicin anna lama soo xariirin laakiin tuu imaanaya kursi weyn waxaa rajeen is noogu wacdo si roos caddo asoo qoslayo aniga kuma haystayo baaruud soo dhawow waa kan ninkii kacabaad siiyo fanaaniinta dabcan asiga iyo weliba kursigiisa laakiin caawa kursi halkan ma joogo oo fanaaniintii iyo annagii iyo baashaal oo keliya weeyaan rose oo ku salaan saaxiib waa kaa qaaday saaxiib maasha allah waa horta runta in la sheegaa fiican rose horta aniga markii kow aan imaaday waa ku dayay woo qosle maxaa ku qoslayaan dhahay markaasuu jawaab wuxuu iga dhigay adigu kuma qoslooyo dhahay gabadhan ku qoslooya ani meeshan ba ku ekaada caloosha ay hortee macnaha si walbaan ugu dayay dhinac walbaan ugu dayay asaga waa dhaqaajin waaye laakiin markii dambe go-aan wuxuu qaatay inuu ani iiga tanaasulo muxuu isdhahay fanaankan ugu tanaasulo asaga loo qabto baaruudo haddii aan ku weydiiyo saddexdan hees ee aad sheegayso bal in badan dhagaha waa nooga bajisay bal caawa halkan ya sac nooga sii maya waa way horta heesaha way ii bilaaban yihiin ani waxaan ka cabsanaya hadda aan qaado maaragtay in liidhaha nagu soo bir laakiin baaruudow heesahaaga ninka kuu tuma ayaa ahaay marka inaa wacdo isoo dardhahda moogiin si kale ma lagu dayn karo maya horta waa wax walba teemkeedu leeyahay ani teemkeygan ku imaado ma fahante marka maya ani ninkaan ii geysan jiray adi kaamiradaada ku ekaa horta ninkaan saaxiibkii ataa waxaan u yaraysta mala ani markaan isqabano waxaan dhahay niyow kaamirmaanaa tahay shaqadaada ku ekaawo anigana timekeyga anan teemkeyga iidaan taagnahay marka waa baaruud horta inta markii barnaamijka intaan lasoo gelin ka hor waa isqaban jirnay nin wuxuu dhihi jiray maanta waxaan u malaynaa inaa ani adiga isdili doono maxaa dhaca waay ani nin fanaanka markaan ku adkeynayo adi hayla hadlin sidaada iga leexo ani ma sugi kari qofka wuu dareemayaa inaan ani mid kalena waa sameynaaye markaan barnaamijka aan ku dhex jiro ani targetkeyga fanaankana wuu ahaay hal ilan ku fiirinaya macnaha qofka bini aadanka bareshirkiisa daakiciisa wax walba ka filo ana mar walba taxadir aan ku jiro dhinacaan iska fiirinaya goormee lagu soo socdaa wax dhan aan ku xisaabtamaya baaruudu u sheeg xataa fanaaniinta kamid inaan kaa baaro oo iga baaraatay ninkaas wuxuu wato maa qaali ha ya gadaalaa ka sheegi doonaa fanaanka intuu kusoo gaarin ayaaba ka baqdayba waxaa istira ama wax wataa maya ani mar walba horta waxaan fiilinaya horta qof walba fanaan meeshaas la keenay nidaam uu ku imaaday iyagana badanaa horta nidaamkay ilaalinayeen anigana macnaha dadkan waxay isdhahan ninkan oo meeshaan iska soo galaya kursigiisa wato ha ku fududaan macnaha qaarkood ilaa ay hadda waxay aaminsiin inaan nooc kale ahay laakiin waa ka duwanahay ma fahanteen waa ka duwanahay walaashii xaa waxaan leeyahay kun iyo koo jeer iga raali noqo fanaan South Africa imaada ahay ma fahanteen
marka igu taxgeli kasta fanaannimada ay iga soo horreysay looma baahan ma fahante marka igu taxgeli saddexdeeda hees baabudow darad waxaa waa is aragnay aniga wejigii way fiirin weysa waxay tiri ma ku fiirin kara iga jeeso adigana hadda waxay sheegtay inaynu kula iska ilaalinayso may ani waxaan kaa rabaa gabadhaas si qaasa inaan u raaligeliyo ani xaabo gaashaanan buu haystaa waa saaxiibkey gaashaan iyo marka intaas ay ugu filan cabdiweli waa tahay waad mahadsantihiin dhammaantiin waa hagaag weli barnaamijkii ayaan bartanka kaga jirnaa ciid wanaagsan dhammaan akhyaarta halkan ku sugan iyo weliba akhyaartana daawanaysa daawadayaal markana waxaan rabaa fanaan kale inaan soo waco oo halkan ugu yeero oo halkan ku mashxadeeno oo ku kaftanno waxaan u yeerayaa fanaanada ayaan wadani ayaanay waxaad ka mid ahayd fanaaniintii kasoo qayb qaatay amaba ugu xiisaha iyo xamaasada badnaa barnaamijka qaraaxa inta uu socday indho badanna soo jiitay waxaa ka mid ahaa waxyaabihii aad tiri yaad u haystaa xaggee ka haystaa intee ka haystaa xaafadaha kees jirta aad lagu guuraystay waa gartay ugu dambeynna meeshiyaa uga kacday xataa wuxuu gaarsiiyey inaan maaragtay dumarnimada xataa aan ka baxo nina ahaa iska soo jaray waa gartay igu soo bood camal waa moogta bal barnaamijkaasi xilligaas baraankiga lagugu sameynayay xanaaqaaga ilaa xadkii uu gaarsiisnaa barnaamijka horta tan laga rabo waxay ahayd in fanaaniinta lasoo saaro waxyaabaha u qarsan dabeecadahooda marka adi heerkoo gaarsiisnaa xanaaqaaga wallaahi horta xanaaqa iyo waxaa arkayseen ayaan ahaan marka la yidhaahdo si niyada markaa u hadla ma xanaaqsanay waa gartay xoogaa qosol yarna waa iska soo jaray qofka si fiican ii daawaday muhiimadda maaha dagaalka in laisku soo booda keliya qofka adoo iska celiyana caadil iska dhiga adoo iska celinaayo caadil iska dhiga qasab maaha in lays xagxagto waa gartay waxay tiri ninkan waa ka cilaayay bal maya ma ku dhaafooyo waxaan is tiraada haddaad tugtato maxaa kusoo kordhaay waa maya inaas difaacda xaqa u leedaha maxaa waa sidaas markii laguu sheegay ee lagu yiri waa branki bal sidee noqotay xilligaasi wallaahi horta waa aamini waaye inay branki tahay haddana markii dambe dadka qosqosleen wallaahi waa la isdagaalahan maanta taariikha meesha ka dhacayso waxyo ciyaal suqinta mooryaana tiini marka waxaa rabtaa sheegta sooma caradaada control weyd markaas hay maya xooga xasir dadkan waaweyn oo dheldhelay maxaa waaye meeshaan ciyaal ma ahani dad waaweynaa ku ogeyday horena meesha waa astaan mas-uuliyiin waa moogtaan dadka joog kulli saaxiibaday waaye waa sidaas ma uga baran ciyaar iyo hadallo maalaa yacniya aad iyo aad marka xoogaa uu igu adkaatay laakiin waa la soo mooday waa gartay dhammaan daawadayaasha ku daawanay maxaa leedahay habeen caaw waa ciid dabcan halkan ka salaamta waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel bay joogaan ciid wanaagsan kulla caam wa antum bilkhayr sama ku ciida meel walba aad adduunyada gadaacladiis ka joogtaan waxaan leeyahay tiin astaan qaraaxo dhammaan waxaan noqonay family oo isku dhow ha xoogaa markii la isla dagaalo isku soo dhawaada si jeclaada moogta waa gartay baraankii kala ma jeceshahay in ay idinkula sameeyo fanaaniintiina may baraankiyada soo socdo in biyo madax la isku geliyaan rajeyna waa tahay ayaan aad ayaad u mahadsan tahay insha allah ayi waan ii salaamayaa dhammaantiin salaamu allah calayk wa kuma adigana sidoo kale waa ku salaamayna waa tahay dabcan dad badan ayaa waxay isdhahayaan hebel maa loo yeero markan waxaan u yeerayaa nin gebi ahaanba barnaamijka soo gabagabeeyey durbadiiba meesha ka kacay markii uu ninkii kursigii watay halka soo fadhiistay waa maxamed jaamac waxaan jeclahay inay ila soo dhaweystaan maxamed caawa astaan t v gudaheeda lama joogo barnaamijka qaraaxa lama joogo waxaan joognaa barnaamijkaan ugu talagalnay adinka inaan idinkugu mahadcelino sidaad uga madadaaliseen shacabka soomaaliyeed iyo annagaba ku dhayna maxaa leedahay marka hore dadka horta horta ciid wanaagsan ciid ulcaafiya aad waxaan u salaamayaa dhammaan madaxda iyo shaqaalaha astaan t v iyo dhammaan asxaabta barnaamijka qaraxa ka qayb qaadatay hadda ka hore waxaa la yidhi ninaa waxaa la yidhi weligaa ma naxin suu yidhi weligay ma naxin
weligaa ma nixin weligaa ma nixin la yidhi saa la yidhi adoo duur lugeynaayo waysa dhabadu kaa hoos boodin suu yidhi taasu naxdin maahana waa qaq baaruud tiisu dee naxdin maahayna qaqay ahayd marka waxyaabihii kaa yaabiyey ee baaruud ee kugu sameeyey maxay ahaayeen alla ama kaa baaruud horta aniga markuu kursiga agtayda soo dhiganayay umaanan jeedin anoo muno iyo abshir ku baashaalayo ayba iigu baxaysaba gadaashaadun baa lasoo maray uu gadaashayda soo maray iyadoo lala murmayo leeban arkaba oo leeda adigu maxaa taa saana u fiiriyasaa oday aa u maleeda inuu luqluq tufaayo ama gadaashayda fadhiya yaabaa ilaahay ii keena mid kaloo la isweydiiyaa jirta muno miski waxaan ka codsaday dee inaan isguursano horta waxaa tidhi ma lagu qabaa somahay ma lagu qabaa ha xoogaa haddaan jaray raalle ahaadaya sheekada kuma fiicin mikrofoonka waa ka jaraynaya baaruudna waa ka cabsinaya waxaa la yidhi waxaa idhi muno ma lagu qabaa maya ma isguursanaha jawaabi imaysa soo celi dad badanaa waxay sugayaan jawaabtii muno miski oo ileh muno miski jawaabta aada u dhiibtay meel kusoo salee marka muno intaan ka rabaa inay dadkii u sheegto aniga iyada guurkeeni anigana waxaan u yeerayaa baaruud ma baaruud naga day cabsi aan dareema hadda soo istaagay maya baaruudka ma cabsanaysa adi xaawo laakiin garay u leedahay xoogaa waa dhamaatay baaruud soo dhawo wax yar waxaa rabaa inaan soo xusuusano habeenkaas iyo wixii meesha ka dhacay waa ku salaam maxamed jaamac baaruud soo dhawo saaxiib sar waa dhawaay ciid wanaagsan horta hadal adi aad dhahdaa ani aaya ayaanta dhankoo biyanaya mafaan haye mar aad dhahday war nin hor ninkaan nin baa balamiyey war ugu yeera ninka bala ninkaa maa lagacna uma imaanine maya dee ereygaasu saxuu ahaa because ninaa ku balamiyey sax meeshii aad ila soo fariisata aniga soo ku baaraysabe adi laakiin fanaan rume ay malaynaysa sax maya markaa dhahday fanaan taas wax kuma sheegi kar markaa dhahday nin waxaa fanaan ku balay cabsi aan iishi dabe ama jaamac waxyaabihii kale ee aad dhahdo waxaa kamid ahaa waa maxay meeshan kala dambeynta aysan ka jirin waa istaagtabo maya xaqiiqay ahayd xaqiiqay ahayd because qof iska socdo lagu leeyahay meeluu ka yimid ma aqaan waa yani amni ahaan seef ahaanan u cabsada marka waa taasuna waa kuma qaldanayn may aan iscafino nixitaanka aan naxday kul aan iscafino may cafis saaxiib waa ku cafiyey waa tahay labadiinaba waa mahadsantihiin maya wax kale ma ku darsanay waxbaa igu jiro muno miskiyaan rabaa ani meeshaan inay ka dhawaajiro arrintii temka ku imawde ya temka ku imawde muno wallahi waa ku imaan kartaa le madaxdaada wacay adna maxamed jaamac maxaad ii rabtaa muno aniga adiga guuraan isku bandhigna muno ma lagu qabaahan ku yidhi maya itiri ma isguursanahan ku yidhi haya laakiin ima weydiinin ma waxaa jira wax kale guur ay weydiisay soo maya jawaabtiyaa lagaa sugaa laakiin aniga facebookaa laygu waalay naftaa layga qaaday gabadhii meel kusoo saleeyaa la yidhi marka waxaan rabaa inay meel igu salayso ilaa hadda hadalkaas dad ayaa daba socda soo maha adiga jawaabkaaga ha laakiin waa laga soo gudba soo maha hadda ya waa laga soo gudba muno haba la ogaaday hadda rurwey ma isku guursanaa maya baraankiga halkaas maa ku baraankiga habeenkii lagugu sameeyey ma ilowday waa ilooba markaa mana arkay aad baad umahadsantiin waa intaas waa kaftaya kaftanay naga ahayd adigana aad umahadsantahay waa hagaag aad ayaad umahadsantihiin qaabka wacan ee aad noola socotaan markana waxaan rabaa inaan u yeero fanaanada da'da yar ee lagu magacaabo nadiifo nini waa gabar aad u degan dabcan oo kamid ahayd fanaaniintii kasoo qayb qaadatay barnaamijka qaraaxo waxaa la dhihi karaaba gabar aad u degan ayay ahayd soo dhawow ayaa leeyahay nadiifo nini waa tahay nadiifo bal kaamiramanka soo dhawow waxyar soo dhawow kaamiramanka iyo ilaa hadda ma cabsanaysaa maxaa ka cabsanaysaa
file baraankii ma ahan barnaamij ayaan u taagannahay halkani in idinkula abaalmariyo astaan idin soo garatay xafladan quruxda badan ee sida heerka saraha loo soo agaasimay nadiifo horta kaamirmaanka iyo wiilka kale ayaa ka xanaajiyo oo ku dhibay waxaa iga xanaajiyey kaamirmaanka maxaa kamid ahay waxyaabihii uu markaasi kaaga xanaajiyey abeenaa imaadabo saacadda fur iyo waxaas bay ugu dhahay horaa ka fura ani diyaaraa buu ahaayba waa gartay marka waxaa sidhaa isteelku kaasi xooyaahe yeelbo waxaa isteelkoo iga qaldooyaa waxaad hore u arki jirtay fanaanka inuu soo labisto jijimo iyo katiin iyo waxyaabahaas uu kusoo labisto waxaa istiri meeshaan maxaa waaye waxyaabaha dhan la isku siiyo fiican weliba faraantiyaasha kulli markaa baxshay faraanti ugu dambaysiiba oo dhan markaasaa dhaa dharkayga uu eg yahay mana siibaay ma siibaay waa gartay sidoo kale wiilka kale ee kabtan baare waxaa tiri walaasha oo kale iga soo qaad markaas waxaa istiri alla ilahay wuu kaa qalay doonaa baryaa weliga gurigay xataa ku sameynaa ku barya halkaas waa tahay nadiifo maxaa leedahay asxaabta ku daawanayso asxaabta waxaa leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiina saawdhantiina aada u mahadsantihiin daawashada quruxda badan aadna daawanaysaan iyo barnaamijka qaraaxo adigana sidoo kale waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa hagaag akhyaarey markana waxaan rabaa fanaaniinta faanoole faray kama qodna aad ayay u fara badan yihiin dhammaantood halkan ayay caawa ku sugan yihiin waxaan rabaa inaan u yeero fanaanka lagu magacaabo nuur kalsooni oo kamid ah fanaaniinta da-da yar ee ka heesta magaalada muqdisho soo dhawow ayaa leeyahay nuur waa tahay dabcan nuur habeenkaas bal ka waran ee barnaamijka qaraaxo bismillaah dhammaantiin waa salaamantihiin kasoo qaybgalayaasha iyo astaan t v barnaamijka qaraaxo asxaabteeda habeenkaas runtii habeen xanuun badan ahayd laakiin aniga waa badbaaday baaruud isma arkin habeenkaas waa ka badbaaday kaamirmaanka maxaa uga badbaadi weysa marka wallahi abshir zaad waa isnaqaanay dad asxaabaan ahayn laakiin marka hore waa u dulqaadanayay saa ugu sabrayay waa ninka waa soo dhaafa xadkiisa waa garta waxaa igu maqaal ah adiga baaruud waa waxa waaye waa ka badbaaday abshirna waxaa ii sheegtay inaad isgaranayseen waxaa jirtay intii qaraaxo habeenkaasi uu socday in wiil kula socday laga xanaajiyey oo adiga naftirkaaga markii aad aragto saaxiibkaa inuu xanaaqay inaa adigana ka istaagtay barnaamijka wiil ay la socdaan saaxiibo nahay wuxuu fadhiyay xafiiska agaasimaha markii abshir oo mar kastoo qodaayo aan xanaaqi waaye oo aan dulqaad badan sameeyey waxaa la isiri ninkan meeshuu ku dheeraada ma ka cooyey ninka saaxiibkiisa la jooga laga soo dhiso saaxiibkiiyaa loo tagay waxaa loo sheegay in maaragtay ninkan barnaamijkan baranki inuu yahay shaashad yaraa la tusay barnaamijka inuu baranki yahay oo ninkan uu xanaaqi leeyahay waxaa la yidhi marka ninkan inaad tagto waxaa dhahdaa meeshaan ixtiraam ma jiro biyaa la ii keenay biyihiina waa la iiga qaaday ama qof aa ii imaaday dhahay ayaa kuu keenay meesha ka istaag waxyaaba noocaas qofkana qof la socdo haddii ixtiraam daro lagula dhaqmo uu xanaaqa aad iyo aad dadka ku daawanaya maxaa leedahay wallaahi malaayiinkana daawanaya waxaan leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bilkhayr waa mahadsantihiin adigana sidoo kale aad ayaad u mahadsan tahay waa tahay markana waxaan rabaa inay halkan soo gaarto gabadha lagu magacaabo in badan xataa waa la sugaya xalqada gabadhaasi ay ka qayb qaadata aan iraahdee oo waxaaba la isdhahayba qoftan haddii la hormariyo ya ama gadaal ayaaba loogu dhigay dadkii oo in badan ayaa la sugayay isbuucyo badan waa gabadha lagu magacaabo iqraindhadee oo dulqaadkeediiba soo gabagabaysay oo kob u siibatay kabtan baara wax ka yaabiyeyba isaga ayada ayaa laga arkay fanaaniinta kale gacan maysan qaadin laakiin ayada cashir lama ilaabaan ayay u dhigtay iqra soo dhawow waa hagaag sidoo kale waxaan rabaa si dhaqso leh inuu halkan kusoo gaaray ninka gabadha heerkan gaadhsiiyey ee kabta inay siibatay gaadhsiiyey ee baaruud waa salaaman tahay aniga salaaman dhexdaasa umaleena kaba hadda kabtin furi kari mooga inaa kuu furtaayees
waxyar waxaan rabnaa anigii daawadayaashii asxaabta halkan ku sugan habeenkii waxa halkan ka dhacay jilin yar inaan noo sameysaan adii agaasimaha ku cararayso meeshan maamul ay leedahay maamulkeeda dadkaan u xil saareen barnaamijka wadaan adiga ina agaasimaha ay sheegtid ma aha Soomaa waa qaldantaa sidaad banaan aniga ma qaldan adiga qaldan adaa qaldan ani ma qaldani yaal suuq qaldan mi ayaal suuq aniga edab yeelo ani edab mi dhigi kartay edab yeelo iqrooy hadalkii ugu kululaa ee ku yiraahdo inaad qof u siibato muxuu ahaa wallaahi xanaaqa iqaado ma wax xasuusta baad maya waxaan dhahay meeshaan hadduu nin fadhin lahaay wuxuu igala kulmi lahaay horta mid kalena way jirtaa sax waaye xooga igu bootay mid kalena way jirtaa oo ma aragtay arrintaas laguma soo darin mobile ii dhiibtay barnaamijka mobile ii dhiibtay markii ay ma aragtay ay xanaaqday xoogaa qofka xamaasadiisa kacsanaan marka waxaan isdhaa walaalay raal noqo mobile hooy dhaaday oo kugu dhufatay gacanta iiga dhufatay markii dambe laakiin raalaha way dhaadeen waa gartay aada ugu xuntaa filaya wiilkan mobilka aad ku dhufatay adna waxaa ku leeyahay marka raalaa haye waa tahay labadiina waa mahadsantihiin iqro maxaan leedahay daawadayaasha caawa ciid dad badan ayaa ku daawanaya taageero badan ayaa yeelatay gabadhii kabta siibatay atiriishada kab taxtay waa lagu bixiyay bal ka war magacaas magac xun ay ugu dhijiseen laakiin waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan fanaaniinta Soomaaliyeed ciid mubaarak anagana sidoo kale ciid wanaagsan ayaan ku leenahay waad mahadsan tahay waa tahay hore ugu sheegaba aad ayay u fara badan yihiin halkana way ku sugan yihiin waxaan jeclahay inaan mid halkan idinkugu keeno oo dib u milicsi aad ku samaysaan maskaxdiina oo aad soo xasuusataan falcelintii ay ka sameeyeen barnaamijka qaraaxo markana waxaan rabaa inaan u yeero fanaan lagu magacaabo Cabdiqaadir Robo oo ka mid ahaa dadkii ugu deganaa intii uu barnaamijka socday الفناني عبد القادر روو سودو مركه هره waa mahadsantahay walaashay waa gartay weliga horta baraanka ma lagu sameeyay kan ka hor weligay baraanka lagu sameeyay laakiin waa arki jiray dad lagu sameeyay waa saacidi jiray xitaa inaan dadkaas camera lagu sameeyo laakiin ani weligay lagu sameeyay dadkii in lagu sameeyo ayaa ku saacidi jirtay ha waa la matalay waxaan sameey aan dhihi jiray laakiin ani lagu sameeyay weligay waa gartay marka adiga inay ku qabsato arintaasi oo kale bal sidoo ah shucuurtaada habeenkaas horta barnaamijka anoo ka shakisan nina idinka kaamera khafiima ay ugu sameeynaysan see wax u jira ilaa qof fayo oo mas'uul oo kaamera dhan loo dhiibay hadallada uu ku hadlayo wax qof miirkiisa jooga ma ahayn marka waxay isdahay ninka nin adig kaamera khafiila ama ugu sameeynaysan anoo shakisan la igu sameeyay kaamera khafiida macnaha kaamirada qarsan waa macnaha kaamera qarsan ama ugu sameeynaysan anoo la igu sameeyay barnaamijkii markii lagu sheegay lagu yiri waa baraankii naga raali noqo bal sidee noqday falcelintaas xilligan wallaahi waa yaabay aadi aadan mar waxaan isdhahay maxaad samaysaa markii hore waxaan ku fikiray horta ninkan quruxdaada loo ka fikiraya ilaa ana arkoy siib jijinta siib jaakeetka markuu leeyahay waxaan ku qanacsanaa ninkan kulley wax fiican uu kula rabaa laakiin markii dambe oo lay dhahay kaamira khafi ahayd aadan aga xumaaday waad mahadsantahay annagana waan kaa raali gelinaynaa waxay ahayd inaan dadka madadaalino oo keliya aad ayaad u mahadsantahay aad iyo aad ayaad umahadsan anna waxaan u mahad celinayaa dad badan oo Facebook igala soo hadlay oo abshir aad ugu xanaaqsanaan way jireen oo anna aad iyo aad ay iiga xumaadeen oo ay dhaheen barnaamijka qalad weyn ah laga galay qofkaas waana ka raali gelin waa mahadsantihiin intii ii soo damqatay kulli waa u mahad celinaya aad u mahadsantihiin mar kale raali ah ayaan annagana ku leenahay abshirna dadka u xanaaqsanna waxaan filayaa inay cafi doonaan bannaankay ka helayaan waa tahay waa mahadsan tahay adaa mudan waa mahadsan kulli caam antum bikhair ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaan asxaabteyda sidoo kale annagana waa tahay waxaan rabaa markana fanaaniinta inta badan horta dulqaad ayay leeyihiin maasha allah qaybihii dulqaadka ayaa dhex mashaaxaynayay fanaanad kaloo aad u dulqaad badan ayaa rabaa inaan u yeero waa fartuun maxamed gabadha lagu magacaabo dabcan qofba magac ayaa fanaaniinta loo bixinaya aniga laakiin fartuun magac ayaa u bixiyo oo ahaa Mrs. Tamam
tamaam habeenkiidan tamaam ay ka bixi weysay wax walba tamaam ayay ku xalisay qof aad u degan weeyaan soo dhawow Fartuun waa tahay waxaan rabaa hal mar inaad u sabcisaan ee Fartuun gabadha dulqaadka hal mar waxaan rabaa inay soo wada istaagaan Kabtan Baara iyo waliba Abshir Saad waxay ka galeen godob aad u weyn gabadha way isugu tageen labadiin waxaa la rabaa xaal marin caawo ciid wanaagsan Fartuun wanaagsan oo wacan weli jin ugu jirtaa baamaad fardaawici ii geysata waa goysay baash madow isku bixi fadlan tan maaha way isku bixi si ay igu goysay waa go'an tahay welina soo ma gadin ugu gadaa dhiman insha Allah baaruuda bixina lacag ninkan aniga waxba igama sameyn waxaan u qaataba asagaba nin waalan inuu yahay laakiin ninkii ikadeeday horta weligay ma arag qof i hor taagan ee marna qajileen oo si kasta ugu tanaasusho tiisuu cadda waa ninkan barbalamka ugu weyn wuxuu ka yimid markaa meesha soo galaya asoo xanaaqsan waa iga tegee shaqadii waa dhammaatee goormaan bilaaba asoo keligiis isla hadlay qolka soo galay marka ninkan waxaa isiri waaba nin ay ku kacsan taho asagaba tiis haysatee Fartuune wuxuu ku dhaha iska yeel haddana wuxuu igu adkeeyey bahlan weliga gacanteeda ku jiro aan ka bixin ilaa gacanteeda uu bahalka jiixo anoo kii ka yaaban kan ii yimide adiga bahalka iska bixi lagu dhahayo maa bixisid war waa fiiriyo qof aadan aqoonin wax idinka dhaxaynin jaa dhaxda dalaq ka soo dhaxama ka soo qaada qof waal marka waxba uma arag laakiin Fartuun mar af carabi ku hadlaysaa jirta aan ku dhahay miixamanoosa aan ku dhahay u qaaday dhaad moogtaa marka maxaa dhaad waxa akhrisi noo duceeyaan ku dhahay aamiin aan ku dhahay maya allahumma ij'al khayr du'a la dhahaa aamiin aan ku dhahay markayno si fiican laakiin mar waxaa jirta aan caado ku dhoodhaa miya caynooysaa waxaan ku dhahay waa ku caynooyaa saacadaaba fasirata soo ma ingiriisna way jire of course okay asaga wuxuu diiday of course asaga wuxuu yiri for my life ma arag qofsan ingiriis ma ku hadla Soomaali waa ingiriis kale Fartuun waa raalgelinaan ka wada ma fahante iyada lagu jira in la iscafi waay marka aan iscafina baayaya anigu cafi masaabaxa iga tiimba marka hore mid cafiba ma abeenkayna cafisay dadku waxaan u sheegaa dadka inta badan ay la socdaan waxay dhaheen xaasida tahay gabadhaas si xun ay yeeshay nin aad damiir lahayn aad tahay nin oo qof oo macnaha haweenka aan macnaha ciiseyn aad tahay haddii dadka ay la socdaan atoorash markay wax jirayaan nin walba qayb uu leeyahay sax runaanta ani waxaan lahay qaybta cadaadiska iyo dhiig kariska fanaaniinta asagoo isi tumay meel uu isi tumay aniga u garaaco baaruudna oo imaado qofkii oo jilicsan waa dhameystirayay oo daalan oo u baahan inuu baxo marka waxaan leeyahay aniga jiliina ku jirnay atooraha mar wuxuu jiraa jaceyl mar wuxuu jiraa dagaal mar wuxuu jiraa maxaa lahaa waa taqaan asagoo dhibaato u geysanayo ani haddaan dhib u geysanayo fanaaniinta igama hay inaan necbahay waa jilaayay marka ogaada ha u malayna inaad dabeecadeeda ay tahay inaad ku dhedheelo ma ku dhedheelin shaqaan u jooga inaad shaqaysta ahayd waa shaqaysanayay marka ogaada Fartuun waxaan leeyahay walaashay 100% xal mustuura aan fidinaynaa naga raali noqo laakiin calanka gacantiisa ku soo celinay waa ku soo celinaya baaruud waa maqlaysaa calankaas adiga keenayo may adaa siisay adaa jaray asaga maaha biyo u keenataa wallahi biyo keenay waxay tiri xitaa shaamba keenay ku bixiyeen waxa calool xumo igu dilay Fartuun ay dhahday ilaa hadda habeenkii marka qof jin ay ugu jirtaan arko waan naxaanay waa cabsada waxa u soo dhaaf Fartuun hooyaday ayaan ka diiday adiga kaama yeelay ugu dambeyn waa ka siibay wallahi akiid waxaan bixi dhii jirto iska dhafa dhii jiray laakiin ninkan daqiiqad igama hortagay waa baxa dhinacaan u taagaa baalka bixi waa baxa horta u taagaa baalka bixi war yari adiga baalka bixi waa soo taagan yahaba Fartuun naga raal noqo Kabtan Baar horta gabadha inaa raaligelisa qaas ani waa raaligeliye iida lagu jira marka aan sacafinan taaganahay darka ciida inaad adaa soo gataa maleena darkaan yaa dala darkaygi bisinka waa bilaabatay waa bareek kale inta dhexdeeda baaro sidoo ii sheegay wuxuu yiri bacdaha xamriina geeyay darka aniga soo gaday ma igu faanis way iga fakatay xaal marin kala dhiibaysin haddana tii hore wili dhaawaceed ku yaal haddana kan ma igu darsamay raal noqode adiga raaligelin allo agaasimaha astaan TV lin kaga dacwooda marka kadib Fartuun intii alaga iga baahan yahay inuu soo yimaado jijintu waa soo gadaya kulli hal maaha labo halka laba isku bedeshay saddexan ka dhigaa okay laakiin dadkoo badan dadkoo arkayaan gacanta ku gelina ogaa kan waa taagantaa gacanta soo maya gurigaaga kugu imaanayna insha Allah guriga maxaa kasoo doonay inta ku gelinay maya gurigaaga kugu gelina
gurigayga ma iga jarta aniga ya gurigayga ma iga jarta meeshaan kaaga jiraateena kursigan tegina meel shaqa iga jarta haddana meel shaqa waa gacanta bashad aan ma gardaran kursi kursi ma yaal waa taagan tahay meeshaan kursi looguma talagelin waa loogu talagalay haddii heer anaa gar leh habeen wanaagsan ciid wanaagsan insha Allah hanuun sidoo kale fartuun maxaa leedahay daawadayaasha daawadayaasha horta kulligiin waa salaamantihiin waadna ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka barnaamijka aad soo qayb gasheen soomaalida dunida dibaddeeda iyo gudaheeda joogta kulli waa salaamaya waxaan leeyahay sanadkaa sanadkiisa gala ilaahay aan ugu gaarsiiyey mid bash iyo barwaaqo aan ku wada gaarno kulla caam wantum bikheer ciid kariim annagana sidoo kale ayaa ku leenahay waad mahadsan tahay sidoo kale waa tahay markana waxaan jeclahay fanaaniintii ayaan weli ku guda jirnaaye fanaan lagu magacaabo liibaan denmark inuu halkan soo gaaro waa tahay soo dhawow liibano waxaad ka mid ahayd fanaaniintii lagu sameeyey barnaamijka qaraaxo baraankiga loogana xanaajinayay bal sidee u arkaysay xilligaasi barnaamijka aad iyo aad baad horta u mahadsantihiin dhammaan marti sharafta astaan t v aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaanteed iyo kasoo qaybgalayaashaba iyo madaxdaba horta aad iyo aad mushkulad fara badan ayaa astaan maalintii barnaamijka igala soo kulantay aad iyo aad run ahaantii aniga waxaan aan la yaabay haddaan sheego waxaan la yaabay horta kow waxaan la yaabay baaruud oo ninkan iska soo galay kartida intaa leegsita waxaan ku idhi soo fadhiistay markaasaan waxaan is war haadhe war looxan intan leegay soo taagan niyaddan ka leeyay afka kama odhanayo moogta ilaa waa laysoo ma garanaysaa muqdisho waan ku cusubahay waxaan ilaa heer wuxuu iga gaadhsiiya idhaahdo yaa ii geeya hargeysa kanoo kale waan garan lahay laakiin hoostaan waxaan islaawaniyo hooshaan hoostaa ka wadad ha hoostaan islaawaniyo waa intaasoo ma garanaysaa muqdisho kolley ma taqaanid damaceega inaana degdegin baa qurux badan laakiin run ahaantii hoostaan iska cunayayoo waxaan lahaa bal ninkan looxee soo taagane ha ninka kale kasii daran isaguna heesta igu qabsanaya ee axmed mooge heestiisii doonayay inuu aniga ma garanaysaa igu qabsado kuu saxan tahay ayuu wuxuu ku yiri waa qalatay ha ha anigii baa yaabay markaasoo dib baan heesta is yidhi malaha waxbaa hoos marayba odaygo markaasaan dib u soo celiyey heesta aan dib u soo qaaday waxyaabihii kuugu yaabka badnaa waxyaabahaasi ayaa waxyaalihii horta igu yaabka badnaa waxyaalahaas inkastoo aan isiri xitaa malaha muqdishona amni saasi kama jiro marka waa inaad isnabtaa liibaanow waa inaad isnabtaa laakiin cadho xoog leh xitaa wallahi markii barnaamijka layga duubayay cadho xoog la ay haysay oo isaga gooni baan u eegay waa baraaj waa lagu lahaa laakiin aniga ima dhadhamayn saasaan hoos u eegay waxaan lahaa niyo ma garanaysa ya marka asxaabta ku daawanaysa maxaa leedahay taageerayaashaada taageerayaashayda dhammaan horta waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed waxa af soomaaliga ku hadla astaanna waan salaamayaa hobolada fanaaniinta igula jiray barnaamijka qaraaxo iyaga aad baan u salaamayaa idinkana aad iyo aad baan nin salaamaya muna oo aad iyo aad inoola yaabay niyow oo xitaa qof baa laga dareemaa wejigeega jiliinkeega horta gabadha aad baan ugu mahadnaqayaa waa jiliin aan ka yaabay weeye waa jiliin aan ka yaabay wax yar kadib waa ismadadaalinaysaa aad iyo aad iyo aad waa tahay waad mahadsantahay liibaan denmark sida wacana barnaamijka uga qayb qaadatan waan kaaga mahad celinaynaa sidoo kale raaligelin kale aniga ayaa ku leeyahay raali ahaa okay waad mahadsan tahay laakiin inkastoo ay baaruud inuu raali geliyo wey waayo baaruud magaalada anoo ku cusub buu ma garanaysaa i gaaday ma garatay laba cabsi baa i gashay maxaa ku keenay buu iga gaadhsiiyey maxaa ku keenay magaaladan hareedhe muqdisho maxaa ku keenay baan gaadhay xitaa liibaan haddaan ku dhahaa raali noqo waad mahadsan tahay laakiin mar baad muqdisho iga eri gaadhay maya waa jooge ilaa xad waa jooge waa gartay waay assalaamu calaykum adigana sidoo kale aad ayaad u mahadsan tahay waay waa tahay waxaan maraynaa qeybihii ugu xiisaha badnaa xafladii aan ugu talagalnay inaan ku maamuusno fanaaniintii kasoo qayb qaadatay barnaamijkii xiisaha lahaa ee qaraaxo ee bisha ramaan aa ugu talagalnay daawadayaashii waxaan halkaan ku sugan dhammaan waxaan soo casuubnay fanaaniintii kasoo qayb qaadatay qaybihii ugu xiisaha lahaana waan maraynaa waxaan jeclahay markana
inaan qof aad wada sugi laadihiin aan u yeero si ay halkan usoo gaarto waa fanaanada codka baxsan ee Shaadiye Sharaf oo qayb weyn ka soo qaadatay barnaamijkii qaraaxo sacab igula soo dhaweeya barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamijkii ugu horeeyay ama xalqadii ugu horeysay ee barnaamijka qaraaxo waxay ahayd Shaadiye qofkii lagu furay waxaana in badan ka wada qoslisay shacab aad u badan waxayna halkaasi ka sii heshay taageero badan iyadoo awalba fanaanad ahayd Shaadiye waxaa ka mid ahayd fanaaniintii barnaamijka qaraaxo xiisaha u yeelay aad iyo aad bal sidoo ahaa habeenkaas dareenkaaga sug hadii niclaaga aad soo tagtay miiga dawada wadi bishaar ma jira maya ma cabsantahay dabcan wuxuu ahaa ninkii kaa waale markii aad barnaamijka soo fariisay intaaba fariisan oo kugu bilaabo soo ma ahayn maya horta ninkan waxaa waaye aniga markaan saas u imaaday ee tareesada igu bilaabatay anoo aamusan waxaan isdhahay macnaha oo iska kaftamooya xoogaa anaa kaftan badan marka dadkii oo dhan saasa u qabaa marka saaxiibkaa wuu imaada laba hadal muhiim wuu ii dhiibay caloosha ay xanuunto waa iska gegsaday bes markii dambe ay igu bilaabata baasha waxaa laygu dhahay niclaha meesha qaad horta ani alxamdulilah intaas saacadeydii katiinkayga la gaarinbo bulaan dhahay jaa waa xanaaqay wuxuu warawara asiga inuu iga furo adduunyadii oo dhan saacad wixii qaanti ah inuu iga dhigo rabo laakiin jaan niclahan ku xanaaqabaani kabtan baaruudna ka waran asagana maya baaruud maba qiyaasi kari ana horta waxaan isdhahay kan saac furmuu soo dhex galay ilaa nin aad u xanaaqsan haddana indhiis gaduud waa waxaan isdhahay adig kan 20 camal uu soo laqaa isdhahay waa gartay aad iyo aad marka kabtan baaruud ayaan jeclahay asagana inuu halkan soo gaaro xoogaa halkan aan ku qaraaxaysano xasuusihii qaraaxo maadaama tiim qaraaxa ay halkan ku sugan yihiin caawa kursiga ka soo tagta be Shaadiye hay cafis waa jiramo may mar hore aan ku cafiyo baani hay warkiisi warka waa cad yahay ama budle ama wado may ana horta waxaan isdhahay mataqaanaa markaa isoo gashay waxaan islahaa ninkan maxaa ka qaldan midaada kale haddana dad fanka aad u jecel oo waxaa jira oo si reer baadiinimo camal ku raadiyo ani saasaa kugu tirinay haddana saasay tahayna iska dhicinna way ugu jirta meel dheer ah markaan ku dhahay ka war madaxa biyo kaaga jira maxaa jawaabta ay jawaab xanaa qabaan Shaadiye xataa waxaa tiri Sacuudiga orbad ma laga soo dhufo ma durantaan sida waxaad dhaqan asoo baawur dhaqay ama hal xab cirbad lagu iloobo maya ana waxaan ku qaraabanayay mar walba aan soo gal waxaan dhahayay Sacuudi aan kala kicin jiray iyo Kismaayo iyo marba meel iska degay ilaa South Africa aan tagaa taane maalinta Sacuudiga ka tustay Sacuudiga iga tustay ilaa maxaa macquul Sacuudi hadaan dhahay in la dhaho wallahi waa shaashada ma laga arko moogtaa dadka xagga jooga heesaa marka nin iskala kicin rabo waa in la dhaha amal darteeda Sacuudi u sheegtay oo raqiis baaruud maxallahay ana horta waa ka safiican meesh in adeega ku fadhi aad iyo aad adima iga cabsanaysa macnaha maadaama aad ku kuuray maya telefoon dirsashaa gashabe hadiga soo gaaro qababa orada gashe maya taas ka sukow dad badan fanaaniin badan oo jirtay oo barnaamijka ku sameysay daraadna maraga xaafad isla joogna waxa igu tiri Shaadiye aad iska ka fiirinay igu tiri macnaha yad camal may mar walba ana weydada waa wada fanaan walba iska ilaalinay weydada waa wada ma sha Allah Shaadiye hal codsi aan wataa mi taxgiilay xanuuya maya caaba halahan ku jiifo diyaar adlu waa ka qabsanayna deeska ku jiifo waa isku dhamaatay waa mahadsantihiin Cabdalle iyo sidoo kale ee Baaruud Shaadiye maxaa leedahay dhammaan shacab weyn ku daawanaya iyo taageerayaasha waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam waan leeyahay Soomaali Maxamed meel walbo ay joogto intii muslimiina waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahda astaan TV iyo waxaan kaloo aad ka salaamayaa ninka aad maskaxda weyn u leh ee keenay barnaamijkan fanaaniinta lagu sameeyo intaas ma sha Allah khibrada ku jirta isla maadaama intaas oo qof in isku keenay oo macnaha barnaamijkeeda diyaariyay isna aad u salaamay wax in badan laga soo shaqeeyay Shaadiye waxa jiray erayo laga dhaxlay barnaamijka
oo TikTok iyo meelaha baraha bulshada dadka isugu yimaadaan la isla dhex qaadayo aadiyahay waa aragtaa filaya waa arkayaa yur madow iyo cadaan ah tusaan leesa carwa ka saytaa cadaan shucuurtaas sidee noqotay dada wallahi soo wax fanina way ahayd oo aniga laftirkeyga isku quslaayay maasha allah laakiin aada u faraxsanahay markii ilaahay brand waayo waqti been ku sheega inay istaa goos aada u xanaaqay ninka waxaan isleeyahay hoos u fadhiiso gabsaarka dhexda ku xiro laba qof oo tolka camalna u wac bud iyo maxaa la la koraan isdhahay markii baraank waa lagu dhahay sheekada ku dhawaaqay waa markaas xooga aadna waa u xanuunsada ma fahanti laakiin waa wax iska fani caadi waa oo loo baahan yahay in dadka laga qofkiyo Soomaha fanaanka inuu hayso kaliya looma baahna mayo waa sax kamida daaliya aad iyo aad ma sha Allah adigana waad mahadsantahay qaabka wacna uga qayb qaadatay barnaamijkaasi astaan mahadsanid ayay ku leedahay ma sha Allah sidoo kale nicleygana waa wataaya waa mahadsantahay Saadiya waa tahay sidaan hore idinku sheegaba qeybaha ugu xiisaha badan ee barnaamijkan caawa ee ah qaraxada fanaaniinta ayaan ku guda jirnaa fanaaniinta waa la abaalmarin doonaa goordhow balse ayada ku dhooda ayaa isa soo gartay oo isa soo xilqaamay waxayna shirkadda astaan ugu tala galeen hees ee caawa u hadiyay doonaan waxayna ka kooban yihiin ilaa iyo 6 fanaan kuwaasoo kala ah fanaanka Nuur Kalsooni Maxamed Jaamac iyo Roosa Cali sidoo kale waxaan u yeerayaa حاول دقن إيه فرتون إيه سيدو كله فنانين تكله إقاب تكأهل ساتي إلى سوداوية قرص
koobka qaade sugan qaaya badan noo soo qadimaye sugan qaaya badan noo soo qadimaye astaantiisii uu qiraa inuu qalbigana degay qamar ifteemiyo midkii koobka qaade sugan qaaya badan noo soo qadimaye sugan qaaya badan noo soo qadimaye astaantiisii uu qiraa inuu qalbigana degay fanaaniinta way mahadsan yihiin heesta ay u hadiyeeyeen dabcan astaan TV dabcan mar kale waxaa leeyahay waad mahadsan tihiin sida wacan ee aad TV-ga amaanta kala dulqaxday sidoo kale waxaan rabaa inaan markan ila soo dhaweysaan fanaanka Mukhtaar Social markii lagu sameeyay baraankiga gudihiisa wuxuu ku dul amirtay heesta naftu damac maxay ahayd oo hore u qaaday fanaankii weynaa Cabdinaasir Macal Ciidiid sorry haddii aan erayada heesta qalday balse heestaasi ayuu soo garaacay uu soo tumay juhdi iyo waqti ayuu geliyay wuxuuna rabaa inuu daawadayaashiisa la wadaago iyo dadka halkan ku suganba ila soo dhaweeyo markan
عيشة ضايعا أنا دال سومرين كما هيرو دليدا دليدا من عيشة ضايعا أنا دال سومرين كما هيرو دليدا دليدا سيدايتين تناغو تري أي حنا هداكتي غيركا درجدو هلي أبيكا مداهيني دادال قاري دونتي دي سيدايتين تناغو تري أي حنا هداكتي غيركا درجدو هلي أبيكا مداهيني دادال قاري دونتي دي ويلها عركي هدبقو درتا دردرتا فوق بيدر وحيرو كوتي رايه مفتوق السنة دمع وانا ويلها عركي هدبقو درتا دردرتا فوق بيدر وحيرو كوتي رايه ذهب ذا اللهين كتنا دلدلو barnaamijkeenan caawa ayaan isla soo gaarnay waana qaybtii ugu xiisaha iyo xamaasada badneed ee aan ugu talagalnay fanaaniinta inay shirkadda astaan ay ku abaalmariso qaabkii wacnaa ee barnaamijkii qaraaxo ay uga soo qayb qaateen waxaan rabaa markan inaan u yeero si uu halkan u soo gaaro master abshir raage waxaan jeclahay in uu qaar ka mid ah fanaaniintaasi halkan uu ku abaalmariyo abshir soo dhawow waxaan jeclahay inay halkan soo gaarto fartuun maxamed oo kamid ah asxaabtii qaraaxa
kasoo qayb qaadatay waxaan doonaynaa inaan abaalmarino marwo fartuun maxamed abuukar waad ku mahadsan tahay ka qayb qaadashada barnaamijka qaraaxo ee ka baxay astaan t v doorkaagu wuxuu ahaa mid muhiim ah mahadsanid adaa mudan abshir iyo sidoo kale fartuun way mahadsan yihiin waxaan kaloo jeclay inuu halkan soo gaaro master cumar ya oo ka mid ah asxaabta tv-ga asta waa tahay waxaan rabaa fanaanka cabdiqaadir robow inuu halkan soo gaaro si loo abaalmariyo waa tahay markana waxaan rabaa inuu halkan soo gaaro isagoo mahadsan abubakar maxamed weli waxaan bartanka kaga jirnaa abaalmarintii fanaaniinta aan ugu talagalnay waayo caaw waxaan halkan isugu imaanay in aan fanaaniintaasi farxadda la wada qeybsano abubakar waa mahadsan tahay waxaan u yeerayaa fanaanada shaadiye sharaf soo dhawow shaadiya sacabna u raaciyo weliba hal mar sacab qalbiga ugu dhisadee abaalmarina la siiyey waad mahadsan tihiin sidoo kale waxaan rabaa inuu halkan soo gaaro si uu u abaalmariyo qaar ka mida fanaaniinta master fu'aad cabdullaahi fu'aad ila soo dhaweeya fanaanka aan markan jeclahay inuu halkan soo gaaro waa maxamed cabdi cabdullaahi maxamed cabdi cabdullaahi markii aan maqlay aniga kudayda waxaan isdhahay taloyo noqon karaa waxaan filayaa roose caddi inuu yahay roose soo dhawo waxaa sidaas u leeyahay wax kale ma ahan naaneystiisa ayaa ka weyn magaciisa waad mahadsan tihiin markana waxaan u yeerayaa firdowso maxamed cali oo asxaabta astaan iyana ka mid ah waxaan jeclahay inay halkan soo gaarto si ay u abaalmariso mid ka mida fanaaniinta sacabkana ku soo dhaweeya waxaa iyana codsanayaa inay halkan soo gaarto iqra xasan iqra indhadeeq si loo abaalmariyo waad mahadsan tihiin labadeena hablood markana waxaan u yeerayaa master maxamed yaasiin oo halkan nagula sugan waxaan ka codsanaynaa inuu halkan soo gaaro si uu qayb uga qaato abaalmarinta fanaaniinta waayahay markan waxaan u yeerayaa fanaanka mukhtaar social inuu halkan soo gaaro
waad mahadsantihiin markan waxaan u yeerayaa master maxamed cabdi muude inuu halkan soo gaaro saagan talow muude yuu abaalmarin doonaa isagana ya gabar ma kaaga dhigaa gabadha wayba tahayba waa xaawadegan soo dhawo xaawadegan waad mahadsantihiin markan waxaan rabaa inaan u yeero master jamaal xaashi oo ka mid ah xiriirka kubadda cagta Soomaaliya qayb ka mid ah soo dhawo master jamaal waad mahadsantahay markan waxaan u yeerayaa si loo abaalmariyo fanaanka maxamed jaamac soo dhawo maxamed waa tahay weli qaybihii abaalmarinada fanaaniinta ayaan ku guda jirnaaye markan waxaan u yeerayaa master ayuub ismaaciil si uu halkan u soo gaaro uuna u guddoonsiiyo qaar ka mid ah fanaaniinta abaalmarintan caawa aan ugu talagalnay waxaan rabaa inuu isna halkan soo gaaro fanaanka liibaan denmark si loo guddoonsiiyo abaalmarintii uu mutay waad mahadsantihiin waxaan codsanayaa inuu halkan soo gaaro waa mar kale master cumar serbiyo si uu qof kale mar kale uu u guddoonsiiyo abaalmarinta waa tahay waxaan rabaa inay halkan soo gaarto fanaanada ayaan xasan ayaan wadani hagaag markana waxaan rabaa inuu halkan soo gaaro master abubakar maxamed wuxuuna abaalmarin doonaa fanaanka nuur kalsooni nuur abubakar nuur kalsooni soo dhawow way mahadsan yihiin marka waxaan u yeerayaa mar kale master fuaad cabdullaahi si uu abaalmarin u siiyo mid ka mid ah fanaaniinta halkan nala jooga caawa waxaana u yeerayaa fanaanada nadiifa ibrahim mini way mahadsan yihiin dabcan abaalmarinta fanaaniinta halkaas ayay ku dhamaatay waxaa jirta iyana oo la abaalmarin doonaa 3 ka mid ah dadkii barnaamijka qaraaxa soo waday ee dadka ku kicinaya sokorta iyo gaaska
waa muno iyo abshirsaad iyo sidoo kale baaruud marka hore waxaan u yeerayaa wariye muno inay halkan soo gaarto si loo abaalmariyo muno waxaa abaalmarin doona master maxamed yaasiin mar kale inuu halkan soo gaaro ayaan ka codsanaynaa muno muddadii bishii ramadaan uu barnaamijka soo socday waxaad u helaneed sidii uu barnaamijkaasi ku qabsoomi lahaa barnaamijka sidaa doonta fanaanka ku keen juhdiga ku bixisay dabcan maantana abaalmarinteeda ayaa ka miro dhalisay oo barnaamijkii wuu hirgalay maxaa ka leedahay horta waxaan u mahad celinayaa dhammaan maamulkayga sharafta leh maamulka shirkadda iyo dhammaan shaqaalaha shirkadda خاصة kuwaan nahay shaqo wadaaga laakiin si khaas ah waxa kaalin ka qaatay barnaamijka kaalin weyn ka qaatay editorka Bashiir Cali Fari aad baad u mahadsantahay Bashiir sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Ustaad Xasan Yufle oo goobtan ka maqan oo isaguna runtii kaalin weyn ka lahaa barnaamijka qaraaxo iyo Abshir Raage mudane Abshir Raage sidoo kale isaguna kaalin weyn buu ku lahaa aad baad u mahadsantiin dhamaantiin adigana sidoo kale waad mahadsantahay ayaan ku leenahay markana waxaan u yeerayaa kala kiciyaha markii uu fanaanka albaabka ka soo galo dabkii basiinka isku dari jiray abshirtaa inuu halkan soo gaaro si loo abaalmariyo waxaan u yeerayaa oo abaalmarin doona master Abubakar Maxamed soo dhawow markii uu abaalmariyo ma hadlayno abshiro markii laga soo tago kaftanka ama dadka fanaaniinta markii aad dhibto markii laga soo tago fanaanna waa tahay moogta horta ya isogtahay marka waxaa jirta hees aad ka dhex gashay fanaanka liibaan denmark ee gaasire la yiraahdo waxaa tiri heesta waa qaladay anaa kuu saxayaa dhahday marka dadkan hortooda la rabaa inaan ka qaada caawo haddii aad heestaas taqaano waa mahadsantahay hanuusa horta liibaan denmark waa u mahad celinayaa marka erayadan waxaa ka mid ahay duusahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraad markay gabax noqdaan qarmeel u sii galay hadday gowracaan gabtaakii wax garada loo geysan jiray gatiray inaga yayna kala guurayaan ishcalaa codkan hore uma maqli jirin balse caawanaaba yaabay waad mahadsantahay abshir markana waxaan u yeerayaa mashiinka kale ee barnaamijka uu ku kici jiray waa kabtan baaruud ama kabtan baara hadda sidaad u taqaanaan waxaan jeclahay inuu halkan soo gaaro Fuaad Cabdullaahi si uu u abaalmariyo hay baaruud maxaad saysaa haddii kabtanka saaxiibu heesaha laga gaabnay hal heeso kamid 3 daqiiqo ee bal ku turbal inay qaadanayso ogaa li dul qaato daway dawa caafimaade dama kumariday dareenka naftayda ay kiciyaa howlahaaga guud iyo danaaga gaarka
jacaylka adaa i baray goos waay isayga dhan goos waay marka waa xoogaa jug in liisi la u baahnay teemkaygaana ku imaaday بارود لبا ما نوقع دورت مس سدح لبا قاد هذا سدح حيس هلا يا دي جرت موقع مد سدح قعنو غسي برشدا كالقعل بقتان قبا كوباني لها روح بابي مقن باهي يا يبان كوبحناني لها hagaag daawadayaal dabcan abaalmarintii loogu talagalay fanaaniinta halkaas ayay ku idlaatay balse horey waxay hadiye uga dhigeen shirkadda astaan fanaaniinta hees ee caawa halkan ka qaadeen haddana waxay soo garowsadeen in kambanigan weyn ee shirkadda astaan ee barnaamijka qaraaxa u qabtay caawana xafladan ku kulmiyey inay abaalmariyaan ayaga ayaa markana soo dhaweynaya waa cabdiweli iyo weliba nuur kalsooni si ay abaalmarin u siiyaan shirkadda astaan sidoo kale muqtar social ayaa kamid ah asagana fanaaniinta halkan jecelahay inay soo gaaraan si ay u abaalmariyaan shirkadda astaan abaalmarintan quruxda badan ee shirkadda ugu talagaleen fanaaniinteenan qiimaha leh waxaa inoo guddoomaysa wariyadii barnaamijka si iskugu kulmisay fanaaniintan qiimaha leh munamiski shirkadda iyada ayaana wakiil ka ah oo u guddoomi doonta mahadsanidin ayaa leeyahay anigoo wakiil ka ah shirkadda aad ayaad u mahadsantihiin fanaaniinteena waxa ugu qoran ay ugu soo qoreen mahad celin idinkaga timid bahda fanaaniinta reer muqdisho waad mahadsantihiin ayaa leeyahay fanaaniinta iyo biladahooda waxaan jeclahay inay halkan yimaadaan intaan barnaamijka kasoo xiray kaliya idinkaadi guud ahaan waxaa jeclahay inaan intaasi kusoo gabagabeeyo barnaamijkii quruxda badnaa ee qaraaxada fanaaniinta xafladani astaan waxay ugu talagashay inay ugu mahadceliso amaba ay ku abaalmariso fanaaniintii qaybta lixaadka kasoo qaatay barnaamijkii qaraaxada ee socday bishii ramadaan waadna mahadsantihiin sida wacan ee aad barnaamijka uga qayb qaadato ku qanacniyo qosolkiyo faraaxada dadownu soo qadima astaan weeye u qira inuu qalbigeena degay fanaaniintu way noo haysaan wayna madadaaliyaan laakiin bishii ramadaan aad ayay noogu qoslaysiiyeen hadda waxay joogaan xalfadda barnaamijka qaraaxo oo loogu talagalay maalinta ciidda aniguna waxaan u socdaa hadda goobta ay ka dhacaysa xafladda waxaana wataa 3 hees baaruud isdajim waxaa isku malaysaa inaa fanaantaa waqtigii barnaamijka qaraax uu dhamaaday waaya saaxiib si wada jira
fanaaniinta mikrofonkooda aan ku wareejino ina keen sahay okay